Wasiirka Difaaca Bakistaan Khawaja Asif ayaa sheegay in hadda uu furan yahay dagaalka u dhexeeya Bakistaan iyo Afghanistan. Wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha Bakistaan ka geysaneyso magaalooyin ka mid ah Afghanistan. Wasiirka Difaaca Bakistaan Khawaja Asif ayaa sheegay in hadda uu dagaal furan u dhexeeyo Bakistaan iyo xukuumadda Taliban ee Afghanistan, iyadoo qaraxyo laga soo sheegayo Kaabul. Dagaalkana uu hadda socdo. Saacado ka hor, afhayeenka xukuumadda Taliban Zabihullah Mujahid ayaa sheegay in Afghanistan ay fulinayso howlgal ballaaran oo weerar ah oo ka dhan ah militariga Bakistan, kaasi oo ka socda xadka Durrani ee kala qaybiya labada waddan. Bakistan waxa ay sheegtay inay dishay 133 dagaalyahan oo Taliban ah, 2 ka mid ah askarteedana ay ku dhinteen, sida laga soo xigtay Afghanistan. 55 askari oo Bakistaani ah ayaa la dilay, halka 8 ka mid ahna dagaalyahanadeeda ay ku dhinteen weerarada. Tirooyinka sida saxda ah looma xaqiijin karo tiradooda. Wadamada caalamka ayaa ugu baaqaya dhinacyada dagaalamaya inay isxakameeyaan. Xiisadda u dambeysay ayaa haddaba socota. Dagaallo toddobaadyo ka socday xuduudda ay wadaagaan dalalka, iyadoo labaduba ay sheegeen in 10 qof lagu dilay. Bakistan ayaa bartilmaameedsatay isbitaal ku yaala magaalada Durrani, waxayna dhaawacday 1 qof. Ilo-wareedyo ayaa sheegaya in militariga Bakistan ay duqeymo dhanka cirka ah la beegsadeen isbitaal ku yaala magaalada Durrani, halkaasi oo ku dhaawacmay mid ka mid ah shaqaalaha isbitaalka, sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta isbitaalka. Shaqaalihii waxaa loo raray meelo ammaan ah, waxayna wadaan bixinta adeegyadii caafimaadka isbitaalka, iyagoo isticmaalaya dhammaan agabka la heli karo. Ma jiro weli wax war ah oo ka soo baxay Bakistan oo ku aadan weerarkani, balse wixii ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan insha Allah.